gudoomiyaha degmada Matabaan Bashiir Cabdiraxmaan Sheekeye ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay xarunta shirkadda Iftiin oo ah shirkadda korontada ee degmada isla markaana dhawaan laga hirgeliyay solar system casri ah. Kormeerka waxaa gudoomiyaha ku helinayay gudoomiye ku-xigeenka degmada, xogayaha guud ee degmada, isku duwaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda Hirshabelle. Intii uu goobta ku sugnaa, gudoomiye waxa uu si dhow u indheeyay shaqada socota iyo sida nidaamkan cusub ee tamarta cadceedda oo uga qayb qaadanayo kor u qaadista adeegyada koronto ee degmada. Kadib, gudoomiye Bashiir Cabdiraxmaan Sheekeye ayaa booqday isbitaalka degmada Matabaan, halkaas oo kula kulmay maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka. Sidoo kale waxa uu indheeyay solar cadceedda ku shaqeeya oo laga hirgeliyay isbitaalkan. Maamulaha shirkadda Iftiin ayaa sheegay ahmiyadda ay u leedahay bulshada degmada nidaamkan dhawaan la soo kordhiyay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Cabdullaahi Xasan Cali, magaca dheer Cabdullaahi Faarax. Waxaan ahay maamulaha shirkadda korontada ee degmada Matabaan ee Iftiin. Waxaan uga mahad celinaynaa dowladda Hirshabelle iyo dowladda Dhaxaba garab istaagii ayna garab istaageen ay nagu taageereen barnaamijka korontada ee aan muddo soo wadnay dhowr iyo 20 sano ah. Xilligii hore oo aanan haysanin systemkan magaalada waxaan dimi jirnay 7 saac oo maalinimo, habeenkiina waxaan dimi jirnay 4 saac. Hadda wax la damiyay lama arko, 4 saac korontada way joogtaa. Inta badanna waxaan isticmaalnaa cadceed, solarka iyo bateriga. Marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinaynaa ilaahayga arrintaas suurto geliyay. Kasoo haddana waxaan u celinaynaa maamulka degmada Matabaan oo sabab u ahay arrintaas in ay dhaqan gasho. Gudoomiyaha degmada Matabaan Bashiir Cabdiraxmaan Sheekeye ayaa ka warbixiyay ahmiyadda uu leeyahay solar system-kan, isaga oo dowlad goboleedka Hirshabelle iyo dowladda federaalka kaga mahad celiyay hirgelinta nidaamkan solar system-ka ah ee Matabaan laga hirgeliyay. Waxaan maanta soo booqannay kormeer inaan ku nimid solar mini grid-iski degmada oo ay runtii sabood garaysay hay'adda IOM ayadoo markaa kaashanaysa wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda Hirshabelle oo runtii mashruucan aan isleenahay mashruuc waxtar u leh, tayo badan iyo waxtar badan deegaanka iyo degmada intaba u leh, oo ay fulisay kambaniga la yiraahdo Tamarso oo aan ayagana leenahay runtii tayadoodii iyo waqtigoodii iyo maaragtay dadaalkoodiiba way geliyeen. waa uga mahad celinaynaa ayagana halkan. dowladda Hirshabelle oo ugu horeeyo madaxweyne Cali Guudlaawe iyo wasaaradda tamarta iyo biyahana waxaan uga mahad celinaynaa dadaalkii iyo maaragtay iyo taageeradii iyo garab istaagii mashruucan inuu ka fulo degmadan Matabaan hore loo geliyay. waqti badan ayaa ku baxay, wax naf ayaa loo huray, deegaanka iyo degmada oo iskaashanaya oo diyaar u ah in mashruucan ay soo dhaweeyaan. mashruucan uu ka fulay ilaahay idankiis. waxaa gacanta ku haya oo mashruucan maaragtay degmada sii gaarsiinayay kambaniga la yiraahdo Iftiin oo ah kambanigii korontada degmada horay gacanta ugu hayay. korontadan ka hor degmada korontadeeda 12 saacadood ilaa 12 saac ayay maaragtay iftiinkeeda iyo leerkeeda iyo korontadeeduba joogeen. sanadkan mashruucan oo laga fuliyay halkan oo aan uga mahad celinayna hay'adda IOM iyo madaxda dowladda Hirshabelle oo ka dhigay in halkan ay soo gaarto mashruucan inuu soo gaaro oo aysan la qabin degmooyinka hadeertaan dowladda intaba aysan la qabin mashruucan oo runtii halkan laga fuliyay 2 qaybood oo ahay. qaybta kalena beergiid ayaa laga fuliyay. mid kale oo solar habis la yiraahdo oo ka capacity yar mid kalena kuwan waxaa laga fuliyay deegaanada Qofey iyo maaragtay Qodqod. runtii waxaan leenahay deegaanadaasna runtii way ku faa'iideen. waxaan rajaynaynaa ayagana markooda in aan maaragtay booqasho ku tagi doono, laakiin hadda midkan aan kormeerayno mashruucan oo soo dhamaaday xarig jirkiisina insha Allah taala aan rajaynayno inuu waqti dhow noo dhaco ayaan kormeernay maanta. kambaniga gacanta ku hayana uga mahad celinaynaa, midkii fuliyay oo sameeyay waa u mahad celinaynaa. hay'adda IOM oo mashruucan maaragtay taabagelintiisa laheedna waa u mahad celinaynaa. marka sida awgeed
bulshadana runtii haddeertaana korontada waa intii loo baahnaay oo 24 hours waa maaragta koronto shaqayso waan oga runtii bulshadu si uga faa'iidane waxyaabo yar Cabdiraciise Qalamed Matabaan.